waxaa meeshaas lagu dilay 8 nin oo reexaaji Saleebaan ah waxay ahaayeen 9 mid kamid hal mid ka badbaaday asagana mid ahaan looga tagay halkan waxaa ka dhacay xasuuq sababay geerida 8 rag ah diyaaradaha Mareykanka ayaa dul yimid xilli habeen ah waxayna xasuuqeen dadkii shacabka ahaa ee halkan ku sugnaa marka laga reebo hal qof oo ay mid ahaan uga tageen haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa sida habeenkaas wax u dhaceen waqtiga ay wax dhaceen dhacdadan waxa ay salka ku haysay inaga oo booqanay goobtii ay wax ka dhaceen lana kulanay dadkii halkaas ka agdhawaa waqtiga dhacdadu dhacday hameena oo saq dhaxa ah 8 saac hameenimo meeshaan ka dhacay weerar ay soo qaadeen qolyo Mareykan weerarkaasni horta hameen u dhacay hameenkaas saq dhaxay ahayd abaaro 8 saac hameenimo sidaan hore kuugu sheegayba qasaara aad u xoogana ka dhacay meeshaas wixii joogay waxba lagama tagin sidii ayaga niyadooda ahayd 9 qof joogtay 9 nin oo reexaaji Saleebaan ah hal nin ka badbaaday 8 kale meesha ku dhimatay baabuur waa lagu gubay oo dhowr baabuur taalay oo hub saaran yahay horta markii hore jug aad u weyn oo magaalooyinka agagaarkeeda oo dhan laga maqlay meeshan ay la maqlay markii hore jugtaas ay ku dhufteen baabuurta jugtaasni oo waxaa laga maqlay qiyaasteeda 200 ilaa 250 kiiloomitir laga maqlay dhawaaqeeda waxaa meeshaas lagu dilay 8 nin oo reexaaji Saleebaan ah waxay ahaayeen 9 mid kamid hal mid ka badbaaday asagana mid ahaan looga tagay dawladda Mareykanka ayaa bartamihii sanadkii 2011 weerar ka fulisay deegaanka oo lagu magacaabo Higlaale isla markaasna dhaca waqooyi bari magaalada Cadaado 40 kiiloomitir ayuu dhinaca ama 35 kiiloomitir ayuu dhinaca waqooyi bari Cadaado kaga toosan yahay Mareykanka warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in weerarkan ay ku dileen 8 ruux waxayna sheegeen in ku soo badbaadsheen 2 ajaanib ah oo rag iyo dumar ah ama nin iyo naag ah oo sida la sheegay halkan lagu haystay Mareykanku waxa warbixintiisa ku xusay in diyaarad ka soo duushay saldhigooda Djibouti weerarkan ay fulisay hameena oo saq dhaxa ah 8 saac hameenimo meeshaan ka dhacay weerar ay soo qaadeen qolyo Mareykan weerarkaasni horta hameen u dhacay hameenkaas saq dhaxay ahayd abaaro 8 saac hameenimo sidaan hore kuugu sheegayba